السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Cream Trading Official. insha Allah waxaan isleegi doonaa bal dhowr lacagood oo last week aynu qaadanay isla markaana aynu ku qaadanay institutional conceptska trades halka ay ku dambeeyeen iyo runtii sidii aynu la dhaqanay aynu insha Allah isleegi doonaa. trades waxay ahayn runtii aynu groupka soo dhignay gaar ahaan groupka ardayda private-ka aynu soo dhignay ay ahayn badankoodu. Okay, waxaan filayaa waxa ugu horeysay lacagtan GBP-yada GBP Jabai ayaa ugu horeysay waa tan runtii ahayd 15 minutes-ka aynu ka qaadanay. sababta aynu qaadanay iyo halka ay ku dambeysayba hadda ayaynu runtii sharaxi doonaa. lacagtan qofka u fiirsada waxaad arkaysaa inay sameynayso runtii waxa loo yaqaano haddaad halka kana u fiirsatid inuu suuqani ahaa uptrend Calera, inuu ahaa maxay uptrend Calera, maadaama suuqani horaantii uptrend Calera ahaa last higher high halka kana ayuu ahaa last higher lowgina kan ayuu ahaa marka 15 minutes kala joogo. waxaad arkaysaa runtii waxa loo yaqaano smart money concept inay bartan ka dhacday ama saddexii nooc ee sheegi jirnay suuqu uu jabin jiray mid kamid inay bartan ka dhacday. kadib markii uu jabiyay suuqu halkaas waxa laga soo hoos maray last higher lowgi suuqa ayaa laga soo hoos maray. kadibna waxaynu qabsanay waxa loo yaqaano IC candle. IC candle-kii markii traderkii yimid toos umaynu qaadan maxaynu sugnay confirmation baynu sugnay. halkan waxaynu ka helnay waxa loo yaqaano rule-kii divergence-ga iyo price action-kii oo iswata ayaynu ka helnay. trade-keena halka kan ayaynu runtii kasoo active gareynay. wax drop aynu ugu sameyn ama wax dib u noqosho aynu ugu sameyn toos ayuu runtii sidaynu doonay ugu soo noqday. waxaynu joognay ma filayaa 15 minutes-ka hadaynu ku noqono one more time. Okay, lacagtan sharaxayna waa tana waxay ahayd GBP Jabai. asalkeena markaynu soo direynay waxaanu sheegnay in 15 bib ugu badnaan ilaa 14 bib uu inoo ahaa kaliya ay siigeena ayaynu la doonaynay. waxaad arkaysaa markii uu yimi intrigeeni inuu ka soo kala jeestay intrigeeni ilaa halkii ayaynu targetkeena la soconaynaa. targetkeena laba shay baynu isticmaalaynay maadaama aynu markaynu trade-ka helaynay ay ku helnay waxa loo yaqaano fibka aynu kan cabirka saarnay oo sababta trade-ka aynu qaadanaba ay kan daraadii ahayd maadaama de suuqu kala wareegay. halkan labadan point dhexdooda ayaynu ka qaadanay. TB-geenu isaga ayuu ku salaysnaa. marka waxaynu sheegnay last TB-geena u dambeeya inuu noqon karo halka kana uu noqon karo. afka markii loo soo saaray ayaa runtii laga noqday. last TB-geeni markii laga soo saaray ayaa dib loo noqday. that's why ayaa de runtii lambaradani macna ayay u taagan yihiin. waxayna u taagan yihiin waa wax macna common oo la isla wada garanayo wax cid gaar ah isticmaalaysa maaha. uu soo drop gareeyay kadib markuu TB-gi taabtay dib ayuu suuqi u kala jeestay. kaasi waxa uu ahaa runtii trade 1-kii ayuu ahaa ama trade-keeni koobaad ee aynu qaadano ayuu ahaa. Okay, another trade baa isaguna jiray runtii oo isna Calera ahaa. maybe kan ayuu ahaa ma filayaa euro GBP bay ahayd. isaga laftirkiisana halkan waxa ku jira waxa loo yaqaano accumulation phase. gaar ahaan waxa loo yaqaano accumulation phase baa runtii ku jiray. waxaad arkaysaa suuqani halkan hoose waynu ka shakisanayn waxayna u aqoonsanayn inay tahay wax loo yaqaano bottom liquidity ama meel liquidity ku xiran tahay. laakiin maadaama liquidity ku xiran tahay laba shay ayaynu isla qaadanay. week-gan yar in qayb liquidity-ga kamid uu qaaday isla markaana hadda suuqu uu last AR-kii u dambeeyay ama automatic rally-gii u dambeeyay ka kormaray oo loo baahan yahay si suuqani selka u sii wato ugu yaraan in supply zone-nadan sare lagu soo celiyo maadaama uu hadda uptrend yar oo Calera halkan iskaga bedelay. laakiin time frame-ka aynu joognaa waa 1 hour. markaynu 15 minutes-ka waxa tagno waxaynu arkaynaa in suuqan uptrend yar uu galay oo doonaya inuu supply zone ku soo noqdo. maxaynu qaadanay marka waxaynu qaadanay halkan inaynu trade-ka ka qaadano 6 bib oo SL iyo TB-geena 50 ilaa 60 bib uu noqdo ilaa supply zone-ka sare la soo gaarayo. sida taasa ayaynu runtii trade-ka sababtaas inuu soo dirnay. Okay, isaga laftirkiisuna meelahan hadaynu ka fiirino. Okay, maybe waa kana isaga laftirkiisuna waa kana runtii u fiirso maxaa uu sameeyay halkii ama sidii aynu doonayna ayuu noqday. accumulation phase-keenu sheegayna waa kana halkan waxa ka sameysmay sharcigii markuu suuqu ka baxo accumulation phase-ka ee demand-ka ama SOS-ka u dambeeya uu jabiyo. waxaad arkaysaa halkan in ku taalo wixii loo aqoon jiray liquidity-gaaga halkan sare ka uga xiran tahay. halkan suuqu marka uu soo jabiyo maxaa kugu dhiirigelinaad qaadato? waxa kugu dhiirigelinaya price action-ka. waxa kugu dhiirigelinaya maxay 15 minute price action baa ku jira this candle hadda halka kan u fiirsato halkan hadda u fiirsato price action Calera ayaa runtii ku jira
price action kalera ayaa ku jira labadii lixdaadii bib marnaba lagama yaabo inuu gaadho ama se ka hoos maro waayo inagu lixda bib aynu khasaarina lixda bib waxaynu ugu talagelaynaa macnaa traderka haddii xitaa aynu khasaarino ama aynu loskareyno si aysan lacag inooga guban oo macnaa traderkii adigoo 6 bib iyo 5 bib kaga qanci kara inaad 50 bib iyo 40 bib SLS haysaa ma qurux badna ama waxay kugu keenaysaa dee dhibaato in akoonkaaga dhibaato u keento ayaa suuragal okay that's why ayaynu soo uga dhignay muxuu sameeyay inuu siiyay negative bigeenii wuxuuna ku noqday supply zone-kii sare aynu sheegaynay maadaama de suuqu uu sell ahaa directionka overall directionka caadiga ee suuqa mar walba waa inaanu shaki ka jirin waa inaad garan kartaa trendigu soo u shaqeynayo shayga ugu muhiimsan aan doonay runtii kula wadaagaan waxa weeyaan suuq hadaad aragto saxaanshihiisa demand supply iyo order block iyo institutional concept midna maaha waa structure-ka suuquna trend line iyo horizontal line midna ma sheege waxa sheega inaad xaqiijin karto higher high-ga iyo higher low-ga suuqa inaad baran karto sida loo xaqiijiyo from weekly to 5 minutes inaad isku xiri karto waxaan arkaynaa suuqan inuu trend yar oo down trend oo lower high lower low lower high lower low lower high saa uu ku soconayay isla lower high u dambeeyay supply zone-kii ama imbalance-gii ayuu soo xiray marka uu soo xirina runtii halka kaas ayuu kasoo kala jeestay oo saas ayuu soo noqday okay inagu marka fursad aynu ka lahayn maxay ahayd fursadan bayga ah ee aynu soo dirnay aynu ka hadlaynay runtii another bear ama trades kale aynu week dhow toliyaga laftirkooda ka faa'iideysanay waxa kamid ahaa lacagta loo yaqaano euro AUD ayaa iyaduna kamid ahayd oo runtii muddo lacag aynu sugaynay ahayd week dhow tolo laakiin istiyaarisay iyada laftirkeeduna runtii waatana dad halka kan u fiirsato okay waatana halkan waxa ku jira runtii imbalance muddo laga maqnaa ayaa runtii ku jirtay oo imbalance muddo laga maqnaa ayaa runtii ku xayirna order block markaad runtii qabsanayso ama institutional candle markaad qabsanayso maxaa institutional candle-kaaga ka dhigi kara ka ugu saxsan waxa ka dhigi kara inaad fahansan tahay waxa loo yaqaan efficiency price-ku waa qodobka kaliya ee kuu sheegi kara the exact institutional candle-kaaga okay hadda halkan u fiirsato liquidity baa ku xayirnaa waa la soo qaaday liquidity-gi laakiin waxaynu sugaynay mar walba waxa la sameeyay in dib suuqa loo yar celinayo oo la celinayo la doonayo in suuqa dadka buy loo muujiyo laakiin baydan yari waxay sii wadi doontaa selka ay sii wadaysay waayo selka uu sii wadaysay because suuqa halkan wuxuu ka sameeyay the clear down trend ayuu ahaa waa kan lower lowgi another still lower high mu sameeysan ama kamu kormarno higher high mu sameeysan lower high-gi ayuu supply zone ku noqday still lower low mu sameeysan halkan ayaa lower low ku ah kani muxuu ahaa last point-gii u dambeysay ee supply zone-kaaga ama lower high-gaaga uu kaga noqday waana sababta la doonayay in loo soo xaqiijiyo down move-kan halkan in la keeno si loo sameeyo waa in supply zone lagu noqdo suuq banaanka dhaqaaqi maayo isaga ayaa lagu noqday waa la soo daadiyay maynu hayn fursad aynu qaadanay fursadan ayaa inoo muuqatay inuu sugaynay confirmation-keena waxa uu ahaa runtii marka uu yimi confirmation entry-ga waxaynu naqaano aynu bixinay waxa uu ahaa marka suuqa entry-ga la keeno inaynu helno waxa loo yaqaano point-kii u dambeeyay ama last higher-kii u dambeeyay ama last higher lower high-kii u dambeeyay ee trendiga hadda socda in la jabiyo trendiga hadda socda in la jabiyo halkiisii u dambeysay oo trendiga 1 hour-ka hadduu trendi ka socdo 50 minute-ka trendi baa ka socda 5 minute-ka trendi baa ka socda trendi kasta oo gaara waxa ka socda trendi gaara ka socda waa inaad garan kartaa sida loo waafajiyo ama sida loo helo trendiga 15 minute-ka ah 5 minute-ka ah ama 50 minute-ka labadaba waad ku xaqiijin karaysay kan waxa la jabiyay oo laga saaray meesha markii higher low-ga lower high-ga meesha laga saaray trade-kaagu active waxa uu ka noqonayay barta taas ayuu ka noqonayay trade-kaagu wuxuu active ka noqonayay halka kaasa ayuu runtii kaaga noqonayay maxay uu active kaaga noqonayay okay trade-keena halka kaasa ayuu active noga noqday wuxuuna dhaqaaqay baan filayaa maybe maadaama weeqiisu dhow xidhmay wuxuu xidhmay ilaa 140 bib meelahaas u dhaqaaqay laakiin halkan wali maxaa ku xayiran halkan wali waxa ku jira wax loo yaqaano imbalance ayaa ku jira intan oo dhan waxa ku jira ilaa halkaas waxa ku jira imbalance ayaa ku jira waana khasab in la soo dhameystiro oo imbalance-ga dib loo soo celiyo si uu de suuqa price-kiisu isku dhameystiro okay traders-ka kale runtii iyaga laftirkoodana faa'iido gaarka wigi dhow tolo ku qabnay waxa kamid ahaa goolka oo runtii lacag aad u qurux badan wigi dhow tolo ahaydna lacagaha ugu dhaqaaqa badan ama ugu faa'iidada badan ba runtii suuqa wigi dhow tolo iyada laftirkeedana sidee ayaynu la dhaqanay waxaynu la dhaqanay runtii sidaynu trade-keena kusoo dirnay halkan more time okay fursadani waxay ahayd fursad horaantii wiigii ka horreeyay dhacday oo ahayd xaqiijisay tradeska aynu qaadan doono inoo xaqiijinaysay fursad tradeska aynu qaadan doono inoo xaqiijinaysay oo halkan doonaysay halkan fursad ayaan ka sugayay
inuu meelaha hoose suuqa ugu soo noqdo maadaama halkan imbalance ku jiro laakiin lama dhammaystirin imbalancegii order block ayaa laga noqday weekii dhaweytoole 15 minute-ka ina kan okay maadaama inagu day trader nahay inta badan 15 minute-ka iyo 1 hour-ka iyo meelahaas aynu ka qaadanaa tradeskeena ilaa 5 minute okay u fiirsan runtii way aynu trade-kan u qaadanay ama way aynu weekii dhaweytoole soo dirnay trade-kan sababta aynu soo dirnay runtii waxay ahayd clear uptrend ayuu suuqu ahaa laakiin this move waxa uu xaqiijiyay inuu suuqu lower high jabiyay mar haddii higher low la jabiyay suuqu waa isbedelay ka dhigan tahay waa uu isbedelay okay marka uu suuqu isbedelay fibkeeni ayaan soo qabsanay trendigu marka uu isbedelay ayaan isticmaali jirnay halkii uu sareysay ilaa halkii uu hoosay aynu cabirnay kadib halkan waxaynu ka dhaxelnay waxa loo yaqaano labadii pointi labada fibka u dhaxeeya institutional entry-ga loo yaqaano halkan ayaynu runtii trade-keena ka qaadanay markaynu trade-keena qaadanay maxaynu markaa sugaynay laba shay ama laba target baynu ka lahayn target-keena koowaad waxa uu ahaa inaynu trade-kan qaadano kan oo loo yaqaano risk entry inaynu qaadano iyo inaynu sugno inuu isagu jabiyo waxa loo yaqaano last higher low marka la jabiyo this move way kaynagu qaadanay ama trade-ka inagu runtii qaadanay ka dambe ayuu ahaa ee jabiyay maadaama de suuqii trendigii hadda socday la xaqiijiyay trendigii hadda socday ayuu ahaa kan ayuu ahaa this one waa trend yar oo 15 minute oo la doonayo isaga laftirkiisa in la xaqiijisid in la jabiyo kale markii isaga la jabiyo la soo noqday trade-keena halkan ayuu active ka noqday maybe 100 side bib meelahaas u dhaqaaqay runtii trade laga faa'iideystana waa uu noqday okay week laftirkiisa waxa ku jiray anada mid kale ayaa ku jiray oo isaga laftirkiisuna kanoo kale ahaa oo suuqa muxuu inoo xaqiijiyay waxa inoo xaqiijiyay waxa loo yaqaano smart money concept-keeni oo ahaa runtii maadaama meesha laga saaray liquidity aba laga saaray suuqa waxa la doonayay inuusan meeshan ka soo hoos marin ama uusan meelahan oo kale ka soo hoos marin wuxuu sameeyay suuqi this move ama this mitigation oo candle-kaasa halka candle ee weyn is mitigated waxa uu mitigate gareeyay lacagtii ku xayirneyd halka kana ku xayirneyd buu mitigate gareeyay ama uu meesha ka saaray isaga ayaynu runtii saaranay waxa loo yaqaano fibka kadibna labadii lambar ayaynu ka dhaxalnay intrigeeni okay markii labada ka dhaxalnay TB-geena waa goorma TB-geena waa marka liquidity-ga meesha laga saaro haddii liquidity-ga meesha laga saaro waad ka haysataa suuqa TB-gaagi okay week-ga maalintiisii u dambeysay ama maalimihii u dambeeyo kale iyada lafteeda waxa jirtay fursad weyn oo abuuray baa jirtay walow aanan anigu fursadda qaadan oo supply zone ka tagtay okay aan kan imaado aynu hore casharaantana ugu sharaxnay ma filayaa casharaantiisu miskeen ku jirnay ku sharaxnay halkan waxaad arkaysaa runtii inuu ku soo noqday suuqu supply zone weyn uu ku soo noqday laakiin waa anigu trade-ka u qaadan waayay sababta trade-kaas u qaadan waayay soo daatay waxa weeyaan is not ma hayo rules-ka ama confirmed wixii iga dhigala confirmed waxa iga dhigaya trendigan hadda socdo waa in la baabiya trendiga hadda maxaan arkayaa trendiga hadda waxaan arkayaa in la burburshay maadaama hadda la burburshay hadda halkan imbalance baa ku jira waan ka baaran karayaa trade ama entry ama halkan fibkayga saaranaya confirmation-kayga waxa iga sugaya divergence-gii trade-kayga waan baaran karayaa waana confirmed waana trade kaleera inaan baadho si aan trade-kayga aan sal ugula soo qabsado okay sida taas ayaan runtii tradeskeena ula qabsanaa waxaa jiray iyaguna lacago ay ka mid ahaayeen dhigagas waayo runtii waxanba waxaynu ku cabiraynay ahayd iyada laftirkeeda fursadaynu ku sugaynay oo waxaan filayaa inaysan halkaynu doonay inoo active garayn waxaa ka harsanaa maybe ilaa 11 bib meelahaasi usoo jirsatay intrigeena maadaama halkan imbalance ku jiro ama efficiency price ku jiro may iman halkaynu doonaynay okay sorry may iman halkaynu doonaynay ee trade-kan aynu la rabnay may iman si aynu korka ugu sii raacno may iman waxa iyaduna la mid ahayd oo lacagta lagaga faa'iideysta ah euro USD ayaa iyaduna ka mid ahayd oo iyaduna halkan imbalance ku jiray laakiin hadda ay meeshii isku bedeshay liquidity ay isku bedeshay oo halkan hadda waxa taala runtii liquidity ayaa taala maxaynu sugaynaa waa in la jabiyo korkeeda la yimaado intrigeena aynu ka helno marka inta ka horeysa maynu qaadanayna inta ka horeysa ma qaadanayno kumana degdegayno trade-ka waxa ugu xun aad sameysaan waa inaad degdegto ama aad trade ku degdegto trade-ka gebigiisuna rule-kiisa koobaad waxa weeyaan inaad lacagtaada ilaashan kartid before aanad lacag samayn marka lacagtaada ilaashato ayaad lacag samayn karaysaa haddaanad lacagtaada ilaashan macnaheedu waxa weeyaan lacagna ma samayn kadhid marka insha Allah intaynu xiisada lamida ku kulmi doono ama aynu ku sharaxayno waa inoo iyo kulanti dambe iyo arag dambe oo xiisa leh. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.